wallaahi horta de markii koobaad ahaa waa markii labaad oo 2014 baa iigu horreysay dee carwada bugaagta ee Hargeysa waa meel horta dee dad badan oo hal doora kulmisa oo ay ka mid yihiin dee abwaanadii waaweynaa Siciid Saalax Axmed Salebaan Bidde Muuse Cali Faruur oo kale marka anagu caawa session baanu lahayn marka waxay ugu helinayay heelo iyo Madaale iyo Haldis iyo Maxamed Galeyd marka de suugaantu baan ku hadlanay dhalinyaro baan isku caawinayna caawa aaminaad baad mahadsantahay waxa la yiraahdaa tayada suugaanta ee waqtiyadan dambe casriga aad bay hooseysaa oo marka la eego waqtiyadii abwaanada waaweynaa ay suugaanta sameyn jireen arintaas ma la qabtaan lama qabo waxaanu la qabin doorto waa dood dheer oo de u baahan waqti dheer in laga doodo de sidii dhageystayaashu waqtigaas isku bedeleen ayaan bay dhageystayaashu waqtigeena isku bedeleen waqti marka suugaantu de waqtiga abta waqti casr gaar ah jiray waxba marka kalitalis iyo nidaam baa marka la dagaalamay laakiin miga the free of expression baa jiray waqtigii waaqicii baa isbedelay dhageystayaashii baa isbedelay curintii baa isbedeshay marka dadka sida qaba anu kuma raaxsanay abwaan bulfaafaynaga si barnaamijkan caawa waxaad kaga qayb qaadanayseen de barnaamijku wuxuu ahaa barnaamijkii buugaagta ama Hargeysa International Book Fair saako furmay 7 cisho soconaya marka anagu caawa waxaan ku lahayn section ama qayb cawiska suugaanta oo dhalinyarada la caweynaynay 5 qof baan ahayn marka anagu waxaan wadeeyay oo akhriyay maasadii darbijiifka carruurta darbijiifka oo hadlisay dhalinyarada kalena maasooyin jacayl ku soo bandhigeen alxamdulilah waa cawis suugaaneed qurux badan baa aad ma santahay abwan waa bandhigii imsaad ee carruurtan ka qayb qaadato wallahi intii de uu furmayba imaka waa 14 sanadood ku dhawaad 10 sanadood ka qayb baan ahaa walaal assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsantihiin Som News aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan sanadkan ka soo qayb galo bandhiga bugaagta Hargeysa oo runtii ah bandhig caalami ah oo runtii la isaga kala yimaado daafaha dunida iyo meelo badan oo waxa weeye caalamka runtii dadku waxay ku soo bandhigaan bugaag kala duwan oo ay qoraan sheekooyin fara badan oo ay waxa weeye ku publish gareeyaan jaraa'idada caalamiga iyo waxa weeye madxafyo caalami oo waxa weeye la isugu yimaado oo waxa weeye fagaarayaasha caalamiga ee lagu soo bandhigo meelaha qoraayada iyo waxa weeye la isugu yimaado ana waqtiga kaaga mahad celinayna maxaad nala wadaagi kartaa oo ah bugaag aad qortay oo hore u qortay macnaheedu aad ku soo bandhigtay carwada bugaagta Hargeysa walaal wax bugaag oo hore aan soo bandhigay ma jirto laakiin sheekooyinka oo soo gaagaaban oo Facebook ku qoraya jira sheekooyinka dad badan ba ku xiran runtii waa sheekooyin qaar kood waxa weeye ay yihiin waxa weeye sheeko faneed ah runtii marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waxaan ay qorsheysan sanadka dambe inaan buugan insha Allah soo bandhigo hadii Ilaahay ka dhigo oo ay qorsheysan tahay inaan sanadka insha Allah aan diyaariyo runtii aad iyo aad noo mahadsantiin abwaanada dhalinyarada ee waqtigaagan oo kala jooga maxay uga dhigan tahay carwada bugaagta Hargeysa oo ay inta badan ka qayb qaataan wallaahi waxay noo tahay waxa jiray berigii hore ee dawladda Soomaaliyeed ee hore ee la wada lahaa intii aan dawladuhu aanay kala laaban tiyaatar baa jiray meel lagu soo bandhigo suugaanta jiray marka xarunta dhaqanka iyo madalaha noocan ah anaga waxay noo yihiin sinamoogi iyo tiyaatarkii lagu soo bandhigi jiray hiba faneeda iyo hibada suugaanta labadaba lagu soo bandhigi jiray marka door weyn baanu ka qaadanaa dabcan oo caawaba waynu arkaynaa dhalinyaro badan oo suugaanyahanka imika ayaa ku jirtay marka waxay noogu jirtaa halkii uu ku jiray tiyaatarka qaranka bartaasay noogu jirtaa ma la soo karaa barnaamijyada noocan oo kala bandhiga caalamiga bugaagta Hargeysa oo kale lagu soo bandhigo sida suugaanta oo kale waxay soo nooleyn karaan amba ay tayeyn karaan afkeena hooyo aad iyo aad suugaantu waxaan ognahay waa marjaca kaliya ee ay bulshada Soomaalidu tixraac ugu noqoto afkeeda iyo dhaqankeeda iyo waxba ay ugu noqoto imikaynu soo yara baranaynaa qoraalkii iyo xaqan aynu u jeesanay laakiin kaydka kaliya haysanaa waxay ahayd suugaanta marka suugaanta imiku dabcan door weyn bay ka qaadanaysaa in dhaqanka iyo waxa weeyaan dareemada bulshada iyo waa door weyn oo lafdhabarta bulshada kamid ah marka kayd bay u tahay dunidan casriga ee maanta aynu joognana suugaan la falgalayso oo waaqiciyada ka warramaysa ayay tahay waana kayd wax galaya oo bulshada iyo inta naga dambeysaba oo u baaqanaya oo haray